injiilka sida Luukas u qoray cutubka 16 haddana wuxuu hartii ku yidhi waxaa jiri jiray nin hodana oo wakiil lahaa kan loogu ashkateeyey inuu alaabtiisa khasaarinayay markaasuu u yeedhay oo ku yidhi waa maxay waxan kugu saabsan ee aan maqlayo isii xisaabtii wakiilnimadaada waayo hadda kadib wakiil ii ahaan kari maysid markaasaa wakiilkiis ku yidhi maxaan sameeyaa waayo sayidkayga ayaa wakiilnimadii iga qaadaya itaal aan wax ku qodo malihi inaan dawrsadana waan ka xishoonayaa waan garanayaa waxaan samaynayo in goortii wakiilnimada layga saaro ay dadku guryahooda igu soo dhowayn doonaan markaasuu u yeedhay mid walba oo sayidkiisu dayn ku lahaa kii hore ayuu ku yidhi sayidkaygu imisuu kugu leeyahay wuxuu yidhi 100 qiyaasood oo saliida markaasuu ku yidhi wixii laguu qoray soo qaad oo dhaqso u fadhiiso oo qor 50 markaasuu wuxuu mid kale ku yidhi imisuu kugu leeyahay isaguna wuxuu yidhi 100 qiyaasood oo sareena markaasuu wuxuu ku yidhi wixii laguu qoray soo qaad oo qor 80 sayidkiisii ayaa wakiilkii xaqa darnaa faaniyey waayo si caqli leh ayuu u sameeyey waayo wiilashii wakhtigan waxay wiilasha iftiinka kaga caqli badan yihiin waxa qarnigooda ku saabsan oo waxaan idinku leeyahay saaxiibo ku samaysta maalka xaqdarada in goortuu dhammaado ay idinku soo dhoweeyaan degmooyinka weligooda kan waxa yar aamin ku ah ayaa weliba wax badan aamin ku ah kan waxa yar ku xaq daran ayaa waxa badanna ku xaq daran haddii aydnaan maalka xaq daran aamin ku ahayn waxa run ah yaa idinku aaminaya haddii aydnaan wixii qof kale leeyahay aamin ku ahayn yaa idin siinaya wixiina mididina laba sayid uma wada shaqayn karo waayo mid buu nacayaa kan kalena wuu jeclaanayaa ama mid buu la jirayaa kan kalena wuu quursanayaa uma wada shaqayn kartaan ilaah iyo maal farisiintii lacagta jeclayd ayaa waxaas oo dhan maqashay wayna ku qosleen markaasuu wuxuu ku yidhi idinku waxaad tihiin kuwa dadka hortooda isku soo caddeeya inaad xaq tihiin laakiin ilaah wuu garanayaa qalbiyadiinna waayo wixii dadka dhexdooda lagu sarraysiiyaa ilaah hortiisa waa ka karaahiyo sharciga iyo nebiyadu waxay jireen ilaa yooxana tan iyo wakhtigaas injiilka boqortooyada ilaah waa lagu wacdiyey oo mid walbaba xoog buu ku galaa laakiin in sharciga dhibic keliya ka dhacdo waxaa ka howl yar in cirka iyo dhulku ay idlaadaan mid walba oo naagtiisa fura oo mid kala guursadaa wuu sinaystaa oo kii guursadaa mid nin laga furay wuu sinaystaa waxaa jiri jiray nin hodana oo dhar guduudan oo jilicsan sidan jiray maalin walbana barwaaqo aad buu ugu farxi jiray oo waxaa albaabkiisa la dhigi jiray miskiin Lazarus la odhan jiray isagoo booga midhan leh oo doonaya in la siiyo jajabkii miiska ninka hodanka ahaa ka dhacay eeduna way iman jireen oo boogihiisa leefleefi jireen waxaa dhacay inuu miskiinkii dhintay oo malaa'iguhu waxay u qaadeen laabtii Ibraahim ninkii hodanka ahaana waa dhintay waana la aasay intuu haadees ku jiray ayuu indhihiisa kor u qaaday isagoo aad u silcaya wuxuuna meel fog ka arkay Ibraahim iyo Lazarus oo laabtiisa ku tiirsan markaasuu qayliyey oo ku yidhi aabbe Ibraahimow ii naxariiso oo Lazarus ii soo dir inuu fartiisa caaradeeda biyo ku tiimbiyo oo carabkayga ku qaboojiyo waayo anigu ololkan ayaan ku silcayaa laakiin Ibraahim wuxuu ku yidhi wiilyahow xusuuso inaad waxaagii wanaagsanaa heshay intii aad noolayd si lamida ayuu Lazarus waxaan u helay laakiin haddeed isaga halkan ayaa lagu raaxaysiiyey adiguse waad silcaysaa weliba annaga iyo idinka waxaa layna dhex dhigay bohol aad u weyn si kuwa doonaya inay halkan ka sii tallaabaan inay idin yimaadaan aanay u karin oo kuwa xaggaasna ayna noogu soo tallaabin markaasuu wuxuu ku yidhi aabbow waxaan kaa barayaa haddaba inaad guriga aabbahay isaga u dirtid waayo 5 walaalo ah baan leeyahay si uu ugu warramo inaanay iyaguna meeshan silcale iman laakiin Ibraahim wuxuu yidhi waxay leeyihiin Muuse iyo nebiyada ee ha maqleen markaasuu wuxuu ku yidhi maya aabbe Ibraahimow laakiin haddii qof kuwii dhintay uga tago way toobad keeni doonaan wuxuuse ku yidhi haddii ay maqli waayaan Muuse iyo nebiyada in kastoo qof kuwii dhintay ka soo sara kaco
la oggolaysiin kari maayo inay rumaystaan